Military ku sugan waddanka Gabon ayaa waxa ay sheegeen inay afgembiyeen xukuumadda. Wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Libreville ayaa waxaa lagu arkayaa gawaarida militariga iyo tiknikada dagaalka, waxaana caasimadda lagu soo rogay bandow. Bayaan ka soo baxay saraakiil military oo dhalinyaro oo laga baahiyay raadiyaha dawladda ayaa waxaa lagu sheegay inay jiraan walaaca sii xoogaysanaya oo ah awoodda madaxweyne Ali Bongo uu ku hogaamin karo dalkaasi Gabon. isla markaana waxaa bayaankaasi lagu dhaleeceeyay saraakiisha ugu sarreysa militariga. Madaxweyne Ali Bongo ayaa in ka badan 2 bilood ka maqnaa dalkaasi Gabon, waxaana laga daweynayaa xanuun aan noociisa la shaacin. Madaxweynaha ayaa mar ku xanuunsaday waddanka Sacuudi Arabiya xilli uu booqasho u joogay waddankaasi. Qoyska madaxweyne Ali Bongo ayaa 50kii sano ee la soo dhaafay maamulayay dalka shidaalka qaniga ku ah ee Gabon, waxaana lagu soo eedeeyay qoyskaasi inay urursanayeen hantida iyo khayraadka dalkaasi Gabon. Ali Bongo ayaa xilka kala wareegay sanadkii 2009 waxaana uu ku guuleystay 2016 oo ay hayaan Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah Star.